laba maansa ay ku koobanayaan rabayaan gabdhaha Soomaaliyeed u jeediyo ay ugu horeeyaan gabdhaha diyaarka waa in la dhiirigeliyo ee quman gabdhaha halaabay la hadlimayo meel laga soo qabtay la leeyahay maansada koobaad waxay saameynaysaa qoyskan quruxda badan horta aad baan waxaan ugu farxaa runtii ayeeyda iyo hooyada iyo waxaan ka maqli jiray markay ama awoow ama aabba soo hadal qaadaan wadaadka reerka isaga macnaha xabiib iyo jacaylkayga iyo waxaas aad gabadha maanta inay adeegsan iyadoo uu yahay saygeedii oreeyadaas oo dhow banaayeen haddana nidaamka bulsho oo aadka u ilaalisay waa ku farxay runtii isaga uu maanta dhow haysa maansada koobaad waxay leedahay adoo dhalayo hagaaya dhaqaayo reer dhisaya dhallaanka hagaajinaya duruustana dhiga abaayo hadhigin qalinkee ku dhaado samuu ku dhiibayaaye ku dhaaf murugada adduunka waxyaalo ku dhaawacaysa marway dhiirshaadahayde dhisiya kaabaadahayde cilmiga ha ka dhaga adkaanin hadhimin geediga walaalo dhimirka dunida aad ahayde dhimirka dunida ay haliidan haliicin dhankii aad hayso dhagxumo weligaa ha qaadan dhilaysna ha u dhaqaaqin adoo dhaqankaagi haysta mar kale reerkii dhaqaaya dhaliil iyo ceeb ka dhowrso ninkaagiya ubad ka dhowro lafdhabar yahay dhuuxa haysa hadhamin been iyo khayaano hadhamin sharaftiyo hugaaga intuu dhahay nabigu kaydso calayhi salaatu wasalaam ninkii dhaxal guura keena gabdhow yaan dhaguhu diidin xalaal dhayal yaan la moodin dhaqaalihii duni la raacin halkaana gabay asaguna dumarka quseeyeen mar dhiirigelina mar waano iyo wax sheega ayaan hablaha qiimaha badan halkan fadhiya u sheegaya ugu soo jeedinaya inay sii gudbiyaan waa ka codsanaya marwa adiga oo noqon karo meerin kara guusha inaad suuqa meeraysataa waa micno la'aan kuwa waxa laga yaabaa ilaah adigu maxaa la meeraysanaysaa anigu adduunka waxa ugu qiimaha badan aan aaminsanahay wax ka qurux badan inaysan jirin horta waa reer la dhiso guur xalaal iyo ubad haddii ilaahay qofka siinayo marka waqtigayga carafkayga inuu laaban yahay laga yaabaa ma fahanteen hay qabanina marka ay oran inaad waa meeraysanaysaa maxaa wax loogu sheegaysaa waqtiga halka ay dhigaan isma dhigin inaad suuqa meeraysataa waa micno la'aane muxtaaj weeye mudanay cilmigu waana mahuraane mar haddaad fursadaha hesho mawla kugu beego adigoo midnaba xoorin oo diidin mahuraanka marna ubadka marna qalinka waa lagu mushaaxay maryihi iyo adoon dhigin hugii cawradana muujin inaad muuqataa waa muhiim magacna keentaaye oo wixii macquul iyo wanaag madal ka sheegtaaye maal khayrka muslimnimada waa lagu tanaadaaye maaweelo iyo been intaad maalmo wad ilaahay shukaansiga waxba laga soo siyaadinayno inay been kaaga saa'idiyo sharaf dhac mooyaan waxba laga soo saa'idinayn bubaydka ka hadlaya maaweelo iyo been intaad maalmo wad ilaahay mudan yahay intaad magansan layd mooga nixi waaye oo maalin kasta baraha bulshada ku soo dhigo oo cawradaadii ceebaha ka faafiya intaad magansan layd muusanow intaad geli lahaydba ay maxay geeyey oo aadan maankaaga iyo waayin magacaaga manfac yeesha waa mahad ilaah miro la beeraaye meher iyo xalaal baa macaan laguna muuqdaaye guursada mas-uul ruuxa oo naagin sharaftiina allah iyo wadaa maaligo magacyo waaweyne adigaan maciinkaa rabaa maalin iyo leyle eebow murtida waa ducee marinkayay seegin aamin dhahaya mixnad baa adduunkii heshoo muunad laga waaye musiibiya dhib baa taagan iyo maranti ceebayne hablaheeni markaan eegabaan ciil marganayaaye miyariyo kolay tahay nin weyn gabar la maamuusay marwanimo milgale baan rabnaa oo la mahadshaaye maqaawiir raggii nooga yal waana murugoone